webiga Shabeelle ayaa ku fatahay dhowr tuulo hoos yimaada degmada Mahadai oo kamid ah degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. Tuulooyinkaasi waxaa kamid ah Buurfuule, Xudur Ciise, Kulmisirey iyo Shiidla Bare. Maamulka degmada Mahadai uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada Mahadai Axmed Xuseen Afrax ayaa gaaray tuulooyinkaasi iyagoo adeegsaday safar dhinac webiga ah oo isticmaaleen dooni si ay ku galaan saameynta fatahaadaas ay ku yeesheen bulshada halkaasi ku nool oo ah bulshada beeraley ah degmadii beerahooda ka soo go'ay lahaana fatahaado cagta ay marsiiyeen. sidoo kale dadkani ayaa guryahoodii ka barakacay waxaana isu bedela qabow iyo kuleel. gudoomiye Afrax ayaa carabka ku dhiftay tuulooyinka ugu daran oo fatahaadu ay saameeyeen. maanta waxaan joognaa degmada Mahadai waxaan kormeer ku nahay oo aan indheeyeen xaaladda fatahaadda webiga Shabeelle uu ku sameeyay tuulooyin ka tirsan hoos yimaada degmada Mahadai sida Buurfuule, Xudur Ciise, Shiidla Bare, saddexdaas tuulo iyo Kulmis afartaas tuulo aan kormeer ku sameeynay. waxa kale oo aan war ka haynaa afartaas tuulo aan kormeer ku sameeynay webiguna aad ugu fatahay khaasatan Buurfuule iyo Xudur Ciise labadaas aad ugu dhiftay dalaga ka go'ay. gudoomiyaha dalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay jiraan goobo kale oo ay caratuur ku sameeyeen si webiga Shabeelle fatahaadiisa looga badbaado. waxa kale oo ka socda webiga Shabeelle oo dagaal lagu jira eji iyo Hurway iyo Calaag dagaal ka socdo waxaan kula dirirsanahay biyaha dhul badan oo gooyay oo ugu yaraan 1 hektar laakiin dadaal badan aan haynaa oo waa la tacaaluhaya. waxa kale oo ku goostay webigu galbeed oo u goostaa dana webiga Shabeelle Mahadai waa kala baraa galbeedna waa u goostay meelba ma reebinba sida Diilaawe, Masuur, Duduble. abuukarr maxamed Bacadle warbaahinta qaranka caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar.